السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وحيس بدن وايتين تي في أنا جاي عبد الرحمن حسن وبرنامج كي أنا بنكو أقول دادين شرني ايتين تي في هذا هنا بحجري عبد الرحمن برنامج كم حرم نادية بقولة دور قلب إن نوقع ورنتو سناك ورسنجلي بقى هالله واحد شيء وح الله عليه واحد يبيها إن ما ممكن قبل سناك قدم سيء والضوء تصاي كو إيش لو قبل سناك أنت هناك تجين مستوروا يود رحمين كعنت على شو صار نور وقالوا كان سوق قادن doona hadii aad boqolaado ninkii loo oran jiray ordayay dhagaxla dad ugu fanaaniintii oo laga cunay kii dhagaxlana waa hadda wixii war laga cunay qolaal babaahiyay malaha nowar madaxweynaha Soomaaliland waa hadda dawladda Israa'iil waxa la sheegayaa inay saanad cirka iyo ciidanka isugu jirta gacanta ka saartay ugu dambeyntii Soomaaliland candala curatay qodobadaas ayaan rabnaa Cabdiraxmaan oo intii barnaamijka joogno inaad noo daadihiso hadii aad boqolaado wixii xog naga waranto waxaad ka horanaysaa inta ka horeysa si caadi ah Axmedow dadka waxaan soo dhawaada hadda la ka dhigo qodobada iyo kuwa kale ayaan qormadeena caawa ku iftiimin doonaa ba isku dul taagi doonaa inta ka horeysa masaajidkii bay dadka u bandhigeen hadda la ka dhigo jaaniskii khayriga ahaa dahabiga ahaa war la araga ahaa dadka gaarsiin hadii la ka dhigo dadka waxaan leenahay jaaniska laga faa'iideysto saajkaasi meel wanaagsan buu marayaa hadii la ka dhigo kuwii hore u gurmadeen Ilaahay ha u gurmado kuwa soo gurmadoona Allah ha u gurmado amiin saajka laga qayb qaataan leenahay insha Allah taala martidan ayaan laynagu dayicin baytullaahi weeye wixii aad gashato oo wax adiga aakhira kaaga soo reeyay insha Allah taala fariinta culimada kadib aan soo laabano masaajka Suleymaan barabshada alle weeye oo masjid nuur badweyn weeye walaalayaal waad aragtaan waxaan soo gaaray adduunka $3,000 buu ahaa qalab baan soo siinay adduunka soo siinay oo yaala halkaas oo maraya hadeerta waxaan u haynaa gacanta ugu haynaa ma jirto binaadaysan hadda bilaabmaysa gobol waxaan laga soo qayb qaato hala soo caawiyo si fiican laga soo qayb galo ma sha Allah walaalayaal wixii Ilaahay loo sii dhibtay weeye wixii masaajid la gashay oo wixii Ilaahay loo sii dhibtay oo wixii Ilaahay amaahsaday waa sadaqad jaariye weeye waa camalkan go'an weeye fi aakhir anfacay qofka حتى ميتات هذا ذكر عندك حقوق المحسنين هذرته ذكر وقف على وحين نقول عكس بدنا هذا انت سو قاعدي dad waalidkood xudhigay bixay ilaahay ka tirsi sidaas oo kale hal laga soo qayb qaato walaalayaal ana la liso masaajidkaas waxa weeye masjid nuur badweyn talasam iyo tamteelba waxa ka soo baxaya masjid nuur badweyn assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasaab iyo qolahana halkaas aan ka soo xiriirsan walaal sidii aan soo xiriir jirteen وعليكم أحسنتي الله يبارك الله يبارك الله يبارك حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن بعد مساجد قبل كسنة قضايا ورسنجلي كان الله وعايش شيئين إن مدحوينه فرين دير بيدره وعلى اليوم واحد داكها إن ما ممكن قبل كسنة كدم سيبه شيء بالورهم هذه أظن ما صنت صاحبين قبل كسنة قضايا الباك هذلي واي sheegayna ku hadlayaan ama matalaada gudida beeshii warsangeli ee deegaanka u matashaamo gobolka u joogto odayaashan dhowr qodob bay ka hadleen waxay sheegeen in dadku deegaanada ay dib ugu soo laabteen nabadna marka hore ay ku qabaan deegaanadoodii meergaaba gudaheeda waxay sheegeen inay u hadlayaan ama ay ku hadlayaan afka beeli warsangeli ee dhawaan madaxweynuhu axdi qarameedka ama axdiga nabadeed uu la galay isla markaana deegaanka dib ugu soo laabtay dhibaatadii ka dhacday gobolka Sanaag kadib حسيش waxay sheegeen cabasho dheer ku qabaan ballankii madaxweynuhu la galay wax ka sokeeya inay soo gaarin waxay sheegeen xilliga abaaraha iyo ilaa imika oo gobolka Sanaag deeqa raashin laga bixiyo in guud ahaan aan wax soo gaaray beesha qof sheegto la waraabiyo aanu jirin beesha warsangeli waa bali war sidoo kale waxay sheegeen in ay maamulka gobolka iyo laamaha kala duwan gobolka Sanaag guud ahaan baa ay mareen waxay sheegeen in loogu jawaabay inaan wax loo hayaa aan jirin waxay eedayn dusha ugu tureen maamulka gobolka Sanaag oo ay sheegeen wixii iyaga loogu talagalay ama loo qoonteeyay inuu hor taagan yahay waxay sidoo kale tilmaameen in waxa weeye fariintooda ku socoto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay tilmaameen in haba yaraatee ilaa markii abaari laga soo bilaabay ilaa imika wax beesha warsangeli soo gaaro luqmadii aan jirin eedoodana wax ku soo koobeen maamulka gobolka Sanaag oo ay arrimaha ku eedeeyeen isla markaana ay sheegeen madax ilaa mujana la kulmeen arrintoodana ay ka dhagaadeen Cabdi Raxmaan ma la oran karaa
odayaasha beesha warsangeli ee hadlay waa kuwa ay si gaar ah isu hayaan maamulka gobolka Sanaag maadaama aan iminka xaalad abaareed jirin oo aan biyo la dalbanayn oo abaartii Ilaahay jibiyay wax walba inagu marnaba xukuumayna labada dhinac qolada cabatay iyo qolada laga cawday midnaba xukuumayno walow abaari laga soo gudbay saad sheegtay oo iminka xilli abaareed aan la taagnayn haddana waxa jiri kara adeegyo kale oo deegaanada qaar ama bulshadu ay u baahan tahay oo odayaashaas waxa weeye odayaal qarane arrinkoodu ma aha in la yiraahdo abaaraha uma la idin waraabinayaa laftirkooda in la waraabiyo u baahan si nabad lagu waraabiyo marka kulay hadalkan waxa keenaya waxyaabaha ka sokeeyay oo duruuf ah oo fuli waayay ayaa waxay keenayaan inay soo kiciyaan la hore iyo waxyaabo hore odayaashana ay tabanayaan marka mar haddii odayaal yihiin oo bulshada nabad iyo dhaqan ay ku metelayaan oo marka balaa dhacdo loo baahan yahay qoryo xareen ay caawdaan oo tamarkaro ma yahayn fariintoodana waa in laga jawaabo ama maamulka gobolku diyaha ka jawaabo ama madaxda kale ka jawaabtay waa in lala fadhiisto oo laga jawaabo oo la dhageysto dhawaaqooda oo aan la dhayilsan ayaa samaha wanaag labaduba ku jira Cabdiraxmaan isla gobolka Sanaag waxa la sheegay colaadii u dhaxaysay Muuse Turwaaye nimanka la yiraahdo Abdulrahmaan maanta in beesha labada beelood gacmaha la isu saaray see kula muuqata arrintaas aad iyo aad u mahadsan tahay maanta waxa weeye waxa gacanta la isu saaray ama ballan iyo axdi loo kala qaaday nabadeed labadii beelood walaalaha ee dhawaan colaadda ku dhex martay Shidan iyo Qadariya ma aha waxa leeyahay meesha la wadaagsin iyo xaysim waa beelaha Muuse Turwaa iyo beesha loo yaqaan Abdulrahmaan labadan beelood oo dhimasho iyo dhaawacba kala gaaray marka hore waxa laga xaalay maanta ama laga heshiiyo la isugu dhaariyay in labada qolaba ay nabad qaataan wali laga wada xaalin wixii kale haday tahay wixii sababay dagaalka iyo haday dhimashadii tahay waa loo gudbiyay laakiin maanta waxa lagu guuleystay labada beelood la isu keeno isla markaana nabad la isugu dhaariyo xabad joojin ina wax tanba dhicin horna uma dhicintii ciidamada qaranku halka ay tageen deegaanada ay gaareen waa Ilaahay mahadi marka labaad waxa lagu guuleystay maanta in la soo hor fariisiyo isla markaana dhaar loo kala qaado inta wixii ka dambeeyay ergooyin iyo gudiya loo saaraya xaaladii meesha ka dhacday wixii dhacay maxaa sababay maxaa dhintay maxaa khasaare taagan laakiin kadib laga gelaya xaajadaas oo dhan ayaa ah in nabad marka hore la isu dhaariyo oo nabad la helo in nabad la helo oo labada qolaba ay nabad qaataan taana maanta ay lagu guuleystay waxaan u muuqataa hadii kadinka la isu taagay oo maanta hortay wada hadal la galay in lagu guuleysan karo wixii kale ka hooseeya hadii alla ka dhigo Ilaahay uga baryana in labada beelood walaalaha aan ma tabaa hadii alla ka dhigo waxyeelada ka dhicin nabadooda lagu guuleysto amiin Cabdiraxmaan asxaabay waxaan ka socnaa tin waxaan ka codsanayaa muuqaalka leegstaan oo barnaamijka sii share gareysaan aragtidiina nala wadaagtaan aytinmay waa tii dhamaatay fanaaniintu waa ku hadlay aad u cawday wax lagu xaliyay arrinta anigu kama warayo si hadaad ka warayso waad nasiin doontaa ninkii ordayay dhagaha waa Maxamed wuxuu sheegay in lacagtii meeda laga cunay yaa u ballan qaaday marro tiro qoraal uu ninkaas ku baahiyay barta ku leeyahay Facebook oo warbaahinta aad u qabsaday ayaa waxa ku soo biiray koox ama dadkii ka cabanayeen lacagtii ay dhilmeeyay aan la siinin oo aanay soo gaadhin ordayay bartiisa qoraalka waxa uu ku baahiyay qoraal dheer oo runtii xambaarsan dareen sidoo kale waxa uu sheegay wixii loo ballan qaaday ama goobta lagu keenay in guud ahaan baan loo fulin qoladii hore weyn oo cabashadoodii warfaafinta wali meel la isla dhigay warmahay laakiin way isla danta qoladii halkar iyaguna soo cawday iyagana way noogeen waxa la oran karaa waa markii saddexaad ee hawshii ay dhimay laga cabanayo ordayay wuxuu sheegay in guud ahaanba wixii loo ballan qaaday haba yaraatay aanay waxba ka soo gaarin waxa uu sheegay subaxa inuu quraac la'aan ku yimi goobta diif iyo dhibaato badan oo ka mutay sidoo qarankiisa uu hor qaadi lahaa walow Maxamed la maamusay oo milga wanaagsan iyo meel wacan la geeyay haddana de mar walba qofku xuquuq u leeyahay meeshan uu ku yimi cid baa uga yeedhay hawdkiisii uu cararay laba arrin baa ka dhashay oo dadku ay aad uga falcelinayeen mid waa kaftan midna waa xaalad ninka ku saabsan tan ninka ku horeeyay dadku badan waxa arkay dad badan oo soo qorayay lacag buu ku ordayay qaranka lacag baa laga rabaa qof kasta lacag buu ka rabaa horta qaranka cid bilaash u shaqeysa ma jirto marka hore qof qaranka bilaash u shaqeeya ma jiro aan Cabdiraxmaan Kimister yeelka casaanahay ma jiraan u malaynaya haduu jirana waa yari waa qodobka labaad ee qofka uu daayay in budget baa loogu talagalo loo qorshay qof kasta oo ay tiim ka qayb qaadanay budget buu lahaa uu ka qayb qaadanayo taana de waxa qofku uu shaqeynaya ilaa nolol maalmeed weeyaan waa marka saddexaad ninkan cid baa marti qaaday oo maamustay oo hawd ka soo kaxaysay oo hargeysa keentay oo hawl gelisay
marka haddii uu yidhi war wixii aan ku ordayay layma siinin in orodkiisii ceeb laga dhigo oo runtii aad iyo aad loo cajarafeeyo waxaan u arkaa inuu xuquuqdiisii la duudsiyeeyo xaquu lahaayo ka maqan uu ninkan horta ka hadlay marka hore waxaanu yidhi wixii aan ku shaqaynayay ma helin waxaanu la mid yahay kuwa hore ee ka cabanayay inaanay xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen aanay helin sida ogsoonay ay dhiin marka la soo galo qaranku budget buu leeyahay miisaaniyad bay leedahay waxba loogu tala galaa qof kale ordayay muxuu lacagta siduu lacag qaranka ugu ordaa waxa uu xalaaleynaya in miisaaniyadii loogu talagalay 18 May ay cid gaar qaadato way la soo ciidaas isku reer yihiin ma kuwii qaatay uu kamid yahay bal lacagta wax ka soo gaadhay yaani eedu isaguna qofkaas eed buu yeelanaya ninka naafada ah ee dhagaan naafada ka ah mar hore weerar baa lagu qaaday Hargeysa oo qola ganacsata baa magaciisa si khaldan u isticmaashay oo maxay ah dee ganacsata dee sababta ku sheegay qola ganacsata magaciisa si xun u isticmaashay oo baraha bulshada leeyahay ku xayeysiistay magaciisa adeegyadooda shirkadaha dhamaan waa loo yeedho xuquuqba ku waajibtay waana la xukumay waana loo xukumo ma lacagta ma la siiyay waa la siiyay waa loo xukumay qof kasta tikirkiisa soo qaatay dadkii wasaaradda ku shaqada baa ka daba tagtay arrinta waa loo xukumay dadka waa la xukumay haddaba qaranku ma wuxuu ka faa'iideystay magacii Maxamed Ordaay yaa sa xukumaya qaranka sidii qaranka markii hore qaranku ugu hiiriyay inuu xuquuqdiisa ka helo shirkadaha iminkana waa in qaranka xuquuqdiisa uu ka helo Maxamed Ordaay oo ka hela qodobka labaad kaftanka waxa weeye sanadkan halku dhig baa la qaatay la yiraahdo aqoonsiga adkays waa laba kelmadood leeyahay waynu aqoonsi baynu helay adkaysina waynu yeelanaa taw dadkan markaa waxaan siimay Maxamed Ordaay iyo tiimkan cabanaya wixii oo dhan iyo dadka cabanaya ay dhiin may heer gobol iyo heer qaranba ka cabanaya dee adkaysigii baa la qaatay sanadkan oo dhagax baa la inoo kariyay iska samra baan oran lahaa inuu inta ka daba geelin lahaa waa kaftano wal qaranka xuquuqdii waa ku leeyihiin laakiin adkaysigii bayna saameeyay ama kelmadii wala inoo qaaday adkaysigii iska adkayst xuquuqdaasna xuquuq qarankii idin gashay anigu oran maayo kuma lihidin oo tafiri maayo laakiin waxaan leeyahay mar haddii qarankii yaa cid dambootay cid dambe soo socota ayay cabanin qof dambe qaranka ka cawdaa yuu jirin baan leenahay inta ka cabanaysaana war haddii la qayladin la maqliyo mar labaad qaylina baan leenahay haddii la idin arkana ark oo ceeb kala qaranka u deysto oo ceebta inaga asturo Cabdiraxmaan cabutooyinkan ama hanaafa dhagaha naafaha ka noqdeen ama fanaaniin ha noqdeen ama cid kale ha noqdeen maxay xukuumadda tilmaan u dirayaan tilmaan waxay muujinaysaa in marka hore xaalad dhaqaale xuma ay jirto way muujin kartaa mar labaadka waxay muujin kartaa in musuqmaasuq jiro oo waxaan la lunsadayo dad gaar ay wax khaldeen mar saddexaadka waxay muujinaysaa dadkan la eedeynaya ee hawlahan ku shaqada lahaa inaanay ahayn dadkii loogu talagalay ee loo igmaday shaqadan ama qaban kari lahaa inaanay ahayn dad lagula khaldamay ahaayeen qof markuu shaqo qabto shaqada wax ka khaldamaa dee xisaab bay leedahay markaa saddexdaa qodobba way muujinaysaa waxay muujinaysaa wax intaa ka badan oo aynu sinaa qabtana in ceeba intaa ka badan inooga iman karaa markaa dhammaan waxay muujinaysaa dadkii shaqadan loo diray ee qaranka ugu magacownaa inay yihiin dad aan muddo kar ahaynoo qaranka wixii loogu diray ay ceebi ka soo noqotay haddii dadkan cabanaya ay khaldan yihiin ama waxa ay sheeganayaan qalad tahay dee in sharci laga waafajiyaabah hadday se gar ku hadlayaan dee wuxuuda qor iyo xarayn la siiyaa weeye qodhay xardaana way la tahay Cabdiraxmaan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hadlay arga Ingiriiska baa hadalkiisii aan banjaalay inaad qodobkan ku soo qaadato balowar madaxweynuhu wuxuu la hadlay warbaahin la Telegraph oo dibadda laga leeyahay oo kamid ah warbaahinta ama wargeysyada ku baxa luqadda Ingiriiska waraysi dheer buu bixiyay marka Ingiriiska ka tagno qodobo xasaasi madaxweynuhu ka dhawaaji markii koowaad Soomaaliland wuxuu sheegay madaxweynuhu in Israa'iil ay ciidamada u soo tababartay ciidamada inuu soo tababarto markii uu horeysay ciidamo Soomaaliland Israa'iil ay u soo tababartay tababarkan ay soo dhameysteen oo Israa'iil ka yimi oo iyaguna Israa'iil baa oo tiradoodu dhantay 50 baa loo soo tababaray Soomaaliland oo kamid ah ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid waxaana khibradda ay soo barteen iyo waxyaabaha ay soo barteen ay ku biirin doonaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii la ka dhigo laamahooda kala duwan waxay muujinaysaa inuu talaabada loo dhaqaaqay dhinacii difaaca iskaashiga difaaca Israa'iil iyo Soomaaliland ayay muujinaysaa badanaa ciidamada la soo tababaray waxay khibradoodu noqon doontaa dhinaca hubka ayay noqon doontaa hadday tahay cir iyo hadday tahay dhulba iyo hadday tahay bad kotokan qof waxa loo soo tababaray inay qabtaan adeegyo ballaaran oo dhinaca saanada militariga oo Israa'iil dhawaan ay guddoonsiin doonto Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale Soomaaliland waxa la guddoonsiyay difaaca cirka taas oo muujinaysa in Soomaaliland markii u horeysay ay heli doonto difaac cir ay cirkeeda mas'uul kaga noqoto
aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Israa'iil ay isweydaarsadeen ayaa loo oran karaa meelo ugu muhiimsan iminka ayaa hadda loo taabaqaaday ama loo dhaqaaqay hore Israa'iil Soomaaliland waxay u soo tababartay dhinaca biyaha iyo waxa weeye waliba adeegyo kala dad ugu soo tababaray dhinaca biyaha khubro dhowr iyo 20 ayaa jiray markan waxa khubrada ku biiri doona khubro military oo markii hore Soomaaliland Israa'iil ay u soo tababartay dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku baaqay wadamada Ethiopia Kenya iyo wadamo badan Afrika kamid ah inay Soomaaliland aqoonsadaan sidoo kale wuxuu sheegay Ingiriiska iyo Soomaaliland inay leeyihiin xiriir soo jireen isla markaana warbeeno Soomaaliland laga faafiyay ayaa jiray jasiiradaha Argentina iyo Ingiriisku isku haystaan ayaa jira warar baa sheegay in Soomaaliland Argentina taageertay madaxweynuhu warkaas sidoo kale uu beeniyay wuxuu ma jiro war qaas waana war propaganda laga sameeyay waxaan si buuxda u taageersanay dhulweynaha dalka Ingiriiska waxaana rajaynayaa dawladda Ingiriiska inay ku soo biirto aqoonsadayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa waad maqli weyda Cabdiraxmaan oo askar baati baa la soo tababaray heer Soomaaliland oo Israa'iil ka timi markii hore askarta Israa'iiliin mood ma ha Israa'iil waa askar ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ma kuulin Soomaaliland baa loo soo tababaray waxaana khubaro loo tababaray dhinaca hubka haday tahay cir haday tahay dhul haday tahay bad iyo haday tahay difaac haddii la ka dhigo laguna qalabayn doono qalab kala duwan oo ugu horeeyaan daroonada kuwa cirka difaaca iyo kuwa dhulka haddii la ka dhigo sidoo kale ciidamada badda ay qayb ka noqon doonaan laamaha kala duwan security dhan bay qayb ka ahaan doonaan haddii la ka dhigo asxaabay waa TV aan wali ka wada socono Cabdiraxmaan qodobada caalamka maxaad lagu xijinaysaa qodobada caalamka Soomaaliland baa aad looga qaylinayaa waxaana Soomaaliland cambaarayay wadamada ugu waaweyn Carabta waddanka Sacuudi Arabiya iyo wadamada isu taga Imaaraadka wadamada isu taga midowga Carbeed loo yaqaano Masar Urdun Oman Qatar Sacuudi Arabiya Kuwait Iraq Pakistan iyo wadamo badan oo ciidanka badan Islaamka u badan ayaa guud ahaan ba cambaarayay furashada ay Soomaaliland furatay safaarada dalka magaalada Qudus waliba Sacuudiga ayaa ugu horeeyay oo si kulul u cambaarayay isla markaana sheegayaan marnaba la aqbali doonin in Qudus safaarad Soomaaliland laga furo Soomaaliland ay Qudus u qaabsato dhul Israa'iil leedahay waana si wanaag hadii wadamadii dunida ugu waaweyn maanta Soomaaliland ay hadal arabkooda ama afkooda uu karayo asayeeshee de waxa loo in magaalo ka dido siiga yare dhanka kale magaalada dalka Pakistan shil ayaa ka dhacay koonfurta dalka Pakistan gaari tareen oo ay saareen ciidanka militariga dalka Pakistan ayaa qarax lala beegsaday 23 askari oo ka tirsan ciidanka militariga ayaa ku dhintay halka ay dhaawacmeen ku dhawaad 100 askari oo kale qaraxan ayaa loo tirinayay inay fuliyeen kooxaha Taliban fadhigoodu uu yahay dalka Afghanistan oo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf baan ka dhaxay labadan dal ama daweer raba ay dhex mareen dhanka kale madaxweynaha dalka Morocco ayaa cafis fidiyay taageerayaasha xulka Senegal oo dhawaan halka ciyaar ka dhacday qalaalaasa balaaran ka geystay madaxweynaha dalka Morocco waxa uu fasaxay dhamaanba makoobka Afrika xabsiga oo taxaabay hadii la ka dhigo dalka ku xidhnaa ayaa xabsiga laga sii daayay dalka South Africa waxa ka socda mudaharaado balaaran oo ay dhigayaan dadka dalka ka soo jeeda isla markaana ay kaga soo horjeedaan dadka Soomaalidu inay sii joogaan dalka South Africa gabigiisaba iyo waliba sidoo kale ajaanibta kale ee wadamada Afrika ka soo jeeda walow Soomaalida ay u badinayaan mudaharaadadan ayaa ama qalaalaasahan ayaa waxa dhacaya boob loogu geystay ganacsiyo kala duwan oo ay leedahay dadka Soomaalidu ay leeyihiin sidoo kale dadka Soomaalida ayaa wehelu noqday ama gabood ka dhigtay xarumaha booliska si ay nabad ugu helaan waxaana Soomaalidu bilowday inay halkaas dhifooda ay kala cararaan hadii la ka dhigo Cabdiraxmaan waxay la tahay barnaamijkeena waxaan ku soo gudagadaynaa asxaabi aniga Cabdiraxmaan qodobka barnaamijkeena ka xigeentan ku kulmino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi